بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستمسك بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة. سورة الحاقة سورة مكية كم تهي سورة ملك كبعدين سودكتي سورة المعارج معركة هورتي سودكتي آياده دو كنتن إيو كو آيادود وي مركا وحياد وهالليسا معركتي سورة قيامها إيو maaragtay ka hadlaysaa maaragtay yani axdaasii ku dhacday nimankii maaragtay dacwada islaamka ka soo horjeeday ayay maaragtay ka hadlaydaa. marka ahwaalul qiyaama ugu daran oo ku bilaabanayda iyo masaaricda meesha ay ugu dambeeyeen oo la dhigay nimankii mukadibiinta ah xaqa diidanaa masiirkoodu meesha uu noqday iyo dadka asxaabul yamiin kitaabkooda midigta laga siinayo axwaashooda iyo qolooyinka bidixda laga siinayo sidaas oo kale adilla mutacadida oo dhowr ayaa waxay u keenaysaa qur-aankan inuu yahay min cindi illaahi caza wajal, rasuulkana uu yahay uu maaragtay saadiq ku sheegayo waxa uu rabbigiis maaragtay uu kaga hadlayo. suuraddana waxay gaar la tahay gaabida aayadaheedu aada u gaabgaaban yihiin oo aad iyo aad naftana maaragtay qofkii tadabbura ay saameynayso maaragtay markuu qofku maqlo macna waxa ay ka hadlaydo. alxaaqa kelimadaas waxaa laga soo qaatay min xaqa shayu idaa habata wujuuduhu hubuutan laa yaxtamilu shakka la yidhaah. shaygu markuu sugnaasho oo aan ixtimaal shakigu uusan ku jirinin kaaskaasay ka timid maaragtay waxayna ka mid tahay magacyada maaragtay qiyaamuhu ay leedahay, saacadda qiyaamo ay leedahay maaragtay waxaana loola jeedaa maaragtay arrimuhu way sugnaanayaan maalintaas dhexdeeda weeyaan iyagoo maaragtay si ka gedisan sidii gaaladu ay sheeganaysay inaan bacthi jirinin, inaan xisaab jirinin, inaan amaalmarin jirinin. waxaasoo dhan waa beenoobayaan. macnaha waxa weeyaan runtiyaa loo tegayaa waaye, runtiyaa loo tegayaa. marka waxa weeyaan alxaaqa yacni tii xaqiijinaysay oo sugayday oo shay kastaa uu maaragtay xaqiiqadu ay sugnaanaysay taas weeye maalinta qiyaama. waa magacyada qiyaamada ka mida waaye. ilaahay wuxuu yidhi malxaaqa, marka maxay tahay xaaqadu? oo maada waa mubtada, yani alxaaqada hore waa mubtada, maada waa mubtadihii labaad, alxaaqatuna waa khabarkii mubtadaha labaad iyo khabarkiisuna mubtadihii koowaad wuxuu noqonayaa maaragtay khabarkiisii uu noqonayaa. sidaasay icraabteeduna ay noqonaysaa maaragtay. marka waxaa kaloo la yidhaahdaa alxaaqa waxaa loogu magacaabay shaki kuma jiro oo waxay sugaysaa dad bay waxay u sugaydaa jannadii oo ahlu janno inay yihiin, qolo kalena waxay u sugaydaa ahlu naar inay yihiinoo naarta ay aadayaan. yacni mu'miniintiina ay jannadii ilaahay aadayaan, kuwii baadilka iyo kufriga ku joogay adduunkana ay maaragtay naartii aadayaan. marka waxa weeyaan yacni way u xaqiijinaysaa weeye qolo kastaba meesha ay masiirkooda uu ku dambayn doono. wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiye baa la yidhi malxaaqatu, xaaqadu waxay tahay maxaa ku ogeysiiyey? waa istifaam waaye, ujeedada laga leeyahay waa tahwiil iyo weyneyn waaye. maxaa ka ogtaa laleeyahay xaaqadu waxay tahay? yani waa maxaaragtay waa arrin aad iyo aad u cajaa'ib badan weeye, waa arrin aad u cajiib badan waaye. marka ma ogtaa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam arrinkeedu arrin weyn weeye maalinta qiyaame oo shaanigeedu maaragtay uu weyn yahay oo arrimo badan ay sugnaanayaan oo markaas dadkii maaragtay adduunka ka soo tegay la kala qaybsamayo qolana ay
jannadii ilaahay aadayso maaragtay la amaalmarinayo wanaagga lagu amaalmarinayo qolo kalena ay naartii aadayso sidaas oo kale maaragtay marka waa arrin aad iyo aad u weyn aa laleeyahay marka maqaamkaasa maaragtay arrinteeda lagu tusinaya iyo weynanka uu leeyahay malxaaqatu maxaa ku ogeysay xaaqadu waxa ay tahay yani arrinkaas arrin weyn weeyaa laleeyahay istifhaamku waa ilal inkaar waa ankirid oo waxa weeye diraayadaasa maaragtay la anfinayaa saas oo kale maaragtay kadabad waxaa beeniday thamuuda ayaa beenisay buu yidhi alle wacaadun baa beeniyeen bilqaaricati bay beeniyeen tii garaacaysay waa qiyaamadii labadaasoo qiyaamihii bay beeniyeen waay marka caad waxay thamuud horta waa qowmu saalixa loo jeedaa nebiyullaahi saalix qoomkiisii waaye marka caadna waa muxuu ahaaye reer thamuud iyakuna way beeniyaanaa layidhi oo maaragtay rasuulkii loo diray ayay labadooda labaasuba beeniyeen yacni waxa weeyaan risaaladii ma aysan qaadanin ma aysan raacin kadabat thamuud waa beeniyeen rasuulkii loo diray beeniyeen waay wacaaduna iyakuna waa beeniyeen bilqaaricati labaduba qaaricadii beeniyeen marka kufrigaasay ku sugnaadeen sida loo kala qaybiyey arag ila qolo kastaa waxa weeye xadkii dhaaftay oo rasuulkii loo diray maaragtay kasoo horjeesteen ilaahay wuxuu yidhi fa amaa thamuudu nimanka reer thamuud la yidhaah fahuliku waa la halaagay bitaaqiyati taaqiyadii yacni midii xadka dhaafaysay ayaa lagu halaagay yacni waxa weeyaan yacni zilzaala lagu dhifto nafta dhamaartay qabiilkaas reer thamuud la yidhaah waa la halaagayo sayxa ama qaylo iyo saaciqa ayaa lagu dhiftay rajfa lagu dhifto dhulkaa lala gooyo waay yacni waa bahal xadka shidadeeda iyo howlkeeda iyo dhibaatadeeda xad dhaaf ah ayaa lagu dhiftaa dabayshaas fa amaa thamuud nimanka la yidhaah reer thamuud fa uhlikuu waa la halaagay bitaaqiyati tii taaqiyadiyaa lagu halaagay wa amaa caadu nimanka la yidhaah reer caadna fa uhlikuu nimankaas waa la halaagay biriixin dabayl ayaa lagu halaagay sarsarin ee dhabanaysa caatiyatin ee xadgudbaysa oo daran waa aad shadiida oo maaragtay yacni dabayl aad iyo aad u maaragtay u xoog badan ayaa iyakana lagu halaagay waay qabaa'ilkaas oo iyakuna xaqii beeniyey sakharahaa ilaahay wuu ku sakhiray wuu ku dhiftay waay waa lagu diray cadaabkaas calayhim korkooda 7 layaalin 7 habeen iyo wa 8 ayaamin 8 maalmood ayaa laysu daba dhigay waay xusuuman oo israacraacsana layidhi yacni 8 maalmood iyo 7 habeenaa laysu daba dhigay intaasay ku socotay dabayshaasoo halaagaysa nimankaa fatara alqowma qoomkii waad arkaysaa ha layidhi fiihaa dhexdeeda sarca kuwa legdan inay yihiin oo meeshaas ay la legdan yihiin oo way baabeen naftiga ka wada baxday way iska yaaleen dhulkay yaaleen kaannahum waxaadba moodaa layidhi acjaazu nakhlin yacni timir jirideedaad moodaa khaawiyatin ee maran oo maaragtay dhexda ka daloosha yani dad waaweyn ahaayeen sida geedka timirta oo kale maaragtay markuu dhulka dhaco dhexdana ka daloolo oo kale sidaas oo kale noqdeenaa layidhi nimankaas halaagii ku dhaco dabaysh lagu halaagay dhulkaysaas ula legdan yihiin maaragtay fahal taraa ma arkaysaa baa layidhi lahum iyaga min baqiyatan yani wax haray ma arkaysaa layidhi يعني من فرقة باقية أو من نفس باقية نف كهرتي أما قيب كهرتي يا ما أركت لي وح كهر لما أرك هالبقى مهرين سياسي كل ما هذا ينوع سياسي كل ما هذا مركب كبعدنا وحى إيمانا نهاية وكلوا أيكم حنا إيمانا وجاء وحى يمد فرعون بايمد ومن بايمد قبل فرعون كوي كسيه الرياء يمد والمؤتفكات يكوي لدبقدي أي يمادين بالخاطئة بلي يمادين واحد يعني فرعون يوحي كهري يكوي لدبقدي وانتبه وحي لي يمادين بالخاطئة تيقف يعني جفكي لي يمادين وكفري حمانتي أي لي يمادين مارت جريمة داسي لي يمادين ينبي آدحون مارت واتي فرعون ودو قرن يسانو
waa ninkii rab ilaahnimada sheegtay waay. marka nimankaasoo dhammaanta kufrigaasay la yimaada, dacwadii xaqahay kasii jeesteen. marka waxa waaye afcaal oo gefsan oo khaatia iyo fawaaxish xun oo maaragtay aada u liidata ayay la yimaadeen. facasow dhammaantood way caasiyeen rasuula rabbihim, rabbigooda rasuulkiisii bay caasiyeen, rasuulkii loo soo diray. marka hal rasuul looma soo dirini, rasuul badan baa qolo kastaba ila dadku isku waqti ma aanay ahayn, isku waqtina ma aysan joogin. marka rasuul badanaa loo soo diray, laakiin waxaa mufradka looga cabiray yani risaaladooda hal mid ay ahayd oo rasuul kastaaba waqti kastaba ay yimaadeen. kan kale meeshuu ka baxo asna ka baxay, tawxiidku waa isku wada mid waay. fa akhadahum ilaahay waa qabtay akhdatan qabasho ayuu qabtay, raabiyatan zaa'idatan ee zaa'ida fi shidda, xagga shiddada iyo adayga ku zaa'ida maarta ayaa lagu qabtay ale. nimankaas waa la halaagay, yani waxba kama harinaa la yiri markii ilaahay cadaabkiisii uu qabto maarta la halaagayay. ilaahay wuxuu yidhi innaa anaku lamaa taqal maa, markay biyihii xadgudbeen, xadgudubka markay suubiyeen biyihii ay xad dhaafeenaa loo jeedaa. waa qowmu nuux wixii ku dhacaa lagu sheegayaa. marka waa ilaahay nicmooyinkiisiyaa lagu tusayaa, lagu leeyahay amaalka laydin galay. dadkan lala hadlayo oo mukhaatabiinta ah yaa la tusaalaynaa laleeyahay amaalkii laydin gala bal fiiriya. innaa lamaa anaku waxaa la yidhi lamaa goortii taqal maa u biyihii ay xad dhaafeen oo maaragtay burqanayay oo lagu halaagay qowmu nuux, xamalnaakum waa ina xambaarnay filjaariyati, doontii aan inu ku xambaaranay. doontii soconay biyaha dushooda ku soconaysay ayaan inu ku qaadnay, inu ku badbaadnay. waa safiinadii, waa doontii weeye oo nabiyullaahi nuux uu sameeyey oo lagu xiftiyey ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa maarag. waxaan sidaa u yeelnuu yidhi ilaahay oo arrinkaas aan u suubinay linajcalahaa inaan ka yeelno waay, yacni nicmadaas inaan kaga yeelno iyo badbaadintaas laydin badbaadiyey aabbayaashiinnii halaagii biyaha lagu halaagay dadkii kale laga badbaadiyey, lakum inaan ina kaga yeelno tadkiratan waano inaan ina kaga yeelno, wax lagu cibro qaato inaan ina kaga yeelno nicmada ilaahay lagu xisiisto. wataciyaha iyo inay weelaydo waayo xiftido, udunun ego ay xifdiyaan, uduntaasoo waaciyatun wax weelaysaa la yidhi. yani shanigeedu ay tahay inay wax xifdido oo maaragtay saas oo kale maaragtay ay maaragtay wacyiga laga soo qaatay bimacna alxifdi lishayi fi lqalbi aa loo jeedaa. macna saas oo kale yani dhiga wax xifdinaya inay xifdiyaan oo nicmadaas ay ogaadaan oo ilaahay ugu shukuriyaan subxaanahu watacaala. يعني إلهي كبد بادي هلاقاس مارتي odayaasheena ama asal usuusheeni halaaga biyaha qoom nuux lagu halaagay. qaybtaas halkaasay ku dhamaatay. haddana ahwaalu qiyaama dib loo galay waxaa la yidhi faidaa nufikha markii la afuufo fi suuri, suurka qiyaamaha markii la boonkii weeye la afuufa, geeskii qarnigii la afuufayo malagku uu afuufayey markii la afuufo, nafqatun waaxidatun hal mar ah, hal nafqa markii yani dhowr goor ay noqonaysaa, laakiin hal nafqa markii la afuufaa la yidhi ahwaalu qiyaama lagu tusana malakul jibriil israafiil biamrin min allahi uu ku afuufo nafqatun waaxida waa uu dhex galo. markaas maaragtay yani waxaa la caddaynaya xaaqadii waqtigeeda iyo kayfiyada ay u dhacayso suuradda lagu soo bilowday iyo sha'nigeedu si u weyn yahay, halaagii sidii loo soo halaagay nimanka mukadibiinta waxaasoo dhana lasoo maray. markaasaa loo faidaa nufikha markii la afuufo fi suuri nafqatun waaxida hal mara markii la afuufo, jawaaba shardi idaada waa kan. fa yowmaidin maalintaasaa leh waqacad way dhacday alwaaqicatu tii dhacaysay waaye, way dhacday waaye. yacni waxa weeyaan maalintaas waa maalin cajaa'ib badan waaye. aayad kalena wuxuu yidhaha yowmaidin tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya. yacni israafiil markuu afuufo oo biamri min allahi waaqicadii way dhacday waaye oo meel looga fakanaya aysan jirinin waa qof walbaba la xisaabinayo, camalkiisa lagu xisaabinayo. saas oo kale maaragtay markay dhacdo sidaasaa dhacaysa, arrin ummadoo dhan simaysa weeye. waxumilad waa la xambaaraa la yidhi markaas, waxumilad waa la xambaaray al ardu dhulkii iyo waljibaalu buurihii,
فدكتها ولا بربريي واي فدكتها ولا بربريي يا بوره يلولك يوطن دكة واحدة هل مرأة يعني بربرين مدأ أيا لبربرية واي كل أجزاء دون بص سبدش وأدولك وبوره وحلون ولا أدونك يوطن باب حوالا قدقا واي ساسي نغنيسا مركي سيدا ليالالي فيومئذ وكيومئذ مالين تسوى مالنتي فيومئذ إذا وقعت الواقع واي واقعداس markay dhacdo oo aan la hori dooninin oo kamida min asmaa'il qiyaama maalintaas markay dhacdo fa yawma idin maalintaas waqacad way dhacday alwaaqicatu tii dhacaysa waa dhacday waay yani qiyaamadii way sugnaatay maalintaas waa la gaaray waay qiyaama la taagan yahay wanshaqad ilaahi wuxuu way dilaacday as-samaa'u samadiina way dilaacday fahiya samadii يومئذ maalintaas waahiyatun daciifatun waay mid kala daadsan waay samadii dhammeed xoogga leheedo malaa'igta iyo waxaas oo dhan ay ku jireen maalintaas waxa way dildilacday malaa'igtii baa soo degayso kasoo baxaysa marka waahiyatun ay daciifatun waaye waxa weeyaan saasoo kale maalinta way dhacaysa maanta iyada ah nafqadii la dhacday qiyaamihii la taagan yahay والملك ملك يليري على أرجائها جهوين كيدو هذا ملك حلوغة جيدا مالتي يعني والملك على أرجاء جنس الملك اللوجيدا مركا عدد مبهم أو ملائكتي والملائكتي ودم اللوجيدا جميع الملائكة يعني وحوى استغراق سماشي قجرة والملك معناها ملائكتنا على أرجائها جهوين كيدا يعني أطراف السماوات iyo jawaanibteeday joogaan hal malaa'igta halkaas taagan yihiin bimacnaa waxa way samada jawaanibteeda iyo arjaadeeda halkaas amarka ilaahay bay fulinayaan markaas waxa lagu yiri wayaxmilu waxa qaadaya carsha rabbiga carshigiisana waxa qaadaya fawqahum dushooda ku qaadaya yawma idin maalintaas 8 malaa'ig الملائكة أطراف السماء تجنت عدة جوجان عرش إلهنا وحسيدة ماتي يعني كواس متاعن كوا كذا سائق قبضا وسديد هذه سديد باسوا عارف أيكو عدد كودنا عن إلهي وجن كوا كله 8 منهم على سديد كم إذا عرش إلهي سده أما سديد صفوف تودا كجرتا أما سديد صف يا ليرادا وصفوف تاس كم إذا عددكودana ilaahay ma cid kale oo garanaya aysan jirinin way carshiga ilaahayna de ilaahay baa garanayo bini aadamku ma yaqaano marka waxa weeyaan ku rumaynaynaa ilaahay subhanahu wa ta'ala carshi inuu leeyahay ilaahayna maaragtay macrifadiisa iyo aadiisa iyo kayfiyadiisa kunhigiisana ilaahay baan u daynaynaa subhanahu wa ta'ala isaga maaragtay yaqaan quraankiisa isaga noogu sheegay xaq weeyaan mar haddii quraanka ilaahay lagu sheegay subhanahu wa ta'ala يومئذ مالين تاسالي مركي هكا لقارو او ما يعني سمدينا اي سيدا تهي عرشي الهي سيدا يهي ما انت ايضا تعرضون وعلى يدين صوبا لقايا هالي تعر عرضي وحويا إظهار الشيء لمن يريد التأمل فيه تاسال الوجه ذا بنانك الذين صوبا لقايا لا تخفى مقرصونان إذا منكم حقنا خافية من قرصونات مقرصون يعني وح قرصونان ما لنت مجرواي يعني حساب بالذين صوبنا والذين حسابنا قف إلهي وح قرصونان أنا مجران واي أما نف قرصونا كرتا وخالق إذا كقرصونا كرتاه بمجرته واي يومئذ تعرضون قولك الوحيد هذا تعرضون حلقة وذا تسألون والذين ويدين يا والذين حسابنا يا مفسرين تقارا سيدا ku fasira maartay marka ardigu waa isla meeshii isku imaanaya marka qaybihii la tagayaa dadkii marka la xisaabiyay waxa way qolana hadda dadka jannada iyo wanaaga iyo muuminiinta waa qolana ku kala waay ilaahay wuxuu yiri fa amma man ruuxi utiya la siiyay kitaabkiisii biyamiinihi midigtiisa laga siiyay fa yaqulu wuxuu leeyahay ha umukalayo iqra'u akhriya كتابك أخرية واي يعني كتابك وعجب وفرح سنية واي
فالإماضة وحوي مرك اسم فعل أمر واي بمعنى خذوا قاتوا كتابك يعني أركب بالوناق إيو خيرك إيو وحا إيو قرن ما أنت ماشي أن جواه كتابك آخرية واي فخذوا اقرأوا وحاد كهيليسان مارتي سيد إلهي كرامي سيد إلهي وبشاري مارتي قوشة وينون قاري وحصو دماد ماشي كجرا واي markaas qof qolasaasay leeyihiin marka qofka sidaa oranaya ayaa wuxuu sheegaya marka xisaabaadkiisii hore ayuu ka hadlay wuxuu leeyahay innii danantu anigu waxaan xaqiijiyey waaye danantu dannika kalima waxna ayqantu waaye wacalimtu waxaan ogaaday annii anigu mulaaqin kii la kulmaya inaan ay xisaabteeda inaan la kulmayaan yaqiinsaday waa yacni adduunka markaan joogay waxaan ogaadoon rumaysnaa maalinta qiyaamaha xaq inay tahay waxaan xaqiiqsaday xisaabta iyo jazaha iyo amaalmarinta run inay yihiin markaasaan arrinka u diyaar garoobay oo can dariiqi aliimaani alkaamil waalcamal asaalix ayaan ugu diyaar garoobay sidaasuu oranayaa marka sidaasuu ogoranaya maarta marka jumladan waxay u tahay jumladii hore ay bimacna tacliil u tahay oo maartay bahjadii iyo farxadii iyo wax maartay haysay ha umuqra kitaabiya taasay bimacna tacliil u tahay waa fahuwa asagaa la yiri marka qofkaas mu'minkii waa faa'iska ahayo ridada ilaahay ku guuleystay wuxuu ku sugan yahay fi ciishatin nolol raadiyatin ee raadica fi xayaatin daati rida يعني رضا ثابت ودائمة وأن مرنا قوينين أي كسوين يا قفكاس وأن نقول صاحب كذا هالي هيو جندي إلهي سبحانه وتعالى كاسال لو أمال مرين قفك مؤمن كه إلهي كواس نقدره أو كوا قولس أو كواس الله نقدره في جنة في جيدو هذا قفكاس يعني كتاب كيس قفك مدك تلقسي في جنة أي يكون في جنة أيها عالية سريدة ومعرفة غير كيد كسريدة وآدي آدو قيم بدن الكاسر لقينا يلغو أمال مرينيا قطوفها وحالي مريه دانية كوات دوية يعني قريبة التناول اللوجي إذا ما أنت أسقفكي دون إنو قوسطة كما فوق ومعرفة وحدي بي مشاكل منكم هيسوى markaas waxa lagu leeyahay dadka ahlu jannada ah muuminiinta oo jannadaas ilaahay geeyay waxa la oranayaa kuluu cuna washrabu abba hani'an halatin ku bogogsanaya raaxaysanaya bima ku cuna leeyahay aslaftum bisababi ma ki sababtiisa aslaftum aad hormariseen fil ayaam al khaliya ayaamihi tigay adduunyada amalkii wanaagsanaa iyo cibaadadii saxiixa ahayd iyo iimaankii wanaagsanaa soo qabateen يعني هو قال لي إمام ابن كثير وحوليه أرن كاسا لولي تفضلا عليهم بالولي يوم من نيس لغم امتنانا وإنعامنا لولي همارت حيا للنبي وحكسونا عليه الصلاة والسلام إنه يري اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة قفن عمل كيسو الجنة قيم معي مركاسي الصحابة يرى ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل مركب بفضل من الله أي ماشى الوتر يا إلهي فضل يسأل الله إنه ما رتكوه كتر الله إنه قيبتي لبعض وقال لي يدتك دي حق الله صنقنا يا الله وحيري وأما من روحي أوتي لسيو كتاب كيس بشماله لقسيو بدحيس لقسيو فيقول كاسوح ليه يا ليتني شليتديدي لم أوت ليسين لآذينا كتابك الله لمسينا ساقواي يعني هدي أن ليسين لهين هي تاسع يفعنا لهذا يعني على سبيل التحصر أي ساولي وشلينا يا الله شليتديدي يدام بليسين لهين يعني كتابك إن الله يسين أياب يرهون لهذا واي ولم أدري وقال لآذينا ما حسابتي ذو حيتهي يعني وحويا إن أنا أقادين بحسابتي وحبك أقادين أي إيجا معنا رونا له العذاب كان يشددا ما أنت على كل ما يحوليه يا ليتها ألا شليت دي كانت أهاتينا القاضية تمدي كتخلصتي ونهاية القاضية يعني
almowtata annihaa'iya ahaateen yacni geeridaas midii lagu dhammaado allatii laa xayaata bacdaha hadday ahaa lahayd alla sidaas ahaateena bule geeridii aan adduunyada kasoo tagno maxay alla ahaateena midii maaragtay yacni noloshu ku dhammaato oo wax dambe oo nolola ka dambaysa aysan jirinin si cadaabkan iyo dhibaatadan marka aan uga badbaado saasuu ku shallaynayaa maa aqnaa kama deeqinuu leeyahay ninka kitaabkiisa bidixda laga sii waa shallaynayaa maa aqnaa kama deeqin cannii xaggayga maaliya xoolahaygii yacni xoolihii adduunka aan jamciyo isu keenay oon ku faani jiray oo maaragta dadkaan ugu faani jiray kama deeqin xaggayga min cadaabillaah cadaabkii ilaahay wuxuu uga taray laa min qaliilin walaa min kathiir wax uu ii qabtee lama arko marka shayga haddaadan daacada ilaahay u adeegsanin oodan ilaahay iimaan saxiixa salka aadan saldhig uga dhiganin oo daacada ilaahay aada xoolihii ku bixinin saasaad ay kugu noqonaysaa halaagaas iyo shallaytadaasaad tegaysaa waay laakiin haddii ilaahay wax ku siiya waxaa la rabaa inaad waddada wanaagsan la martood ilaahay ugu dhowaato oo meel allo meeshii lagu sheegay inaad la aaddo taasaa fiican halaka waxaa halaagsamayuu yidhi oo dhammaaday halaka bimacnaa dahaba canii waxaa iga tegay way waxaa iga qarsoonaaday maanta waana maaragtay adduunkana aan ku haystay maaragtay canii aniga xaggayga waxaa iga halaagsan iga tegay sultaaniga awoodeydii yacni wejigii wanaagsanaa iyo awooddii adduunka aan ku lahaa iyo sharaftii iyo wixii aan ku faani jiray maanta waxba gacan kuma hayo waay yacni waa iga tegay waxaasoo dhan maanta gacan kuma hayo saasuu ku shallaynayaa malaa'igtiya markaa la leeyahay ninka odaga intaas uu soo maaragtay shallaynayo hadalladaas tirada badan markuu sheegay dibadeed ayaa waxaa la leeyahay khuduuhu qabtaa la leeyahay faqulluuhu xirxira yacni xirxira la leeyahay oo maaragtay yacni silsiladihii oo maaragtay naarta ahaa ku xirxira waa la dulleynayaa yacni dulli ahaana laga wadaa in aada loo dulleeyo khuduuhu qabta faqulluuhu xirxira la leeyahay xirxira uma aljaxiima naarta jaxiima la yiraa salluuhu geliyaa la leeyahay naartaa ku sola oo ku guba oo geliyo ku tiimbiya isaga dhanba halkaa ha la geliyo marka qof kastoo xaqa diida oo kufriga gaalnimo doorta oo diinta ilaahay yacni gees marah magacuu doona ha ahaado ma ha sheegto yacni waqtiguu doona ha qaato awoodduu doona ha isbido haadihi hiya nihaayatuhu halkaasaa u dambayn doonta waa lagu xirxirin waa lagu qabanin jahannamo ayaa dalaq lagu siinayaa amaalkaagu intaasi way adduunyadaas maanta aan joogno waxyaalaha ay ku suubinayaan oo gaaladu ay maaragtay dadka ay ku wareerinayaan macno weyn ma leh maxaa yeelay waa dhammaanaysaa ninkii maanta wax isbidaya berri asagoo dhulka yaal baad arkaysaa kabacdina godka loo sii wado maxaa ka dambeeya meeshaasaa ka dambeeya nin walbaba halkaasaa sugeeda allah ina badbaadiyay marka wax weyn yaan loo arkin waayo macnahaas uma fii silsilatin silsiladaa la yidhi darcuhaa dhirirkeedu 70 diraacan 70 dhudhun uu yahay faslukuuhu qaadsiiyaa la yidhi oo yacni silsilad oo bir ah ayaa qofkii maaragta lagu xirayaa si uusan u cararin ama cadaabkii loo siyaadiyo dullaynta la dullaynaya loo siyaadinaya marka darcuhaa waa dhirirkeeda dhudhun markii la dhudhumiyo sidaasoo kale maaragtay waxaa la eg faslukuuhu marka mina silka laga keenay bimacnaa idkhaalu fi shay geliya laleeyahy geliya sida aayaddii maa salakakum fii saqara layan marka maa adkhalakum waay saqara maxaa idin geliyey naarta markay joogaan ku jiraan waxaa leeyahay war maxaa naarta ina geliyey qaaluu lam nakun min almusalliin salaada ayaan ka tagnay ma aanan duka jirin ku doodayaa qofkii salaada ka tagana halkaas asagana yaa sugayda marka dadka muslimiinta adduunka markay joogaan in la dadaalo waa qof walba haba daacada ilaahay iyo diinta ilaahay inuu ku dadaalo inta aan waqtigu ka dhammaanin ayaa la rabaa qof walbaba ibnu kathiir ayaa alimaam ibnu kathiir wuxuu soo arooriyey markuu aayadahan ka hadlayay axaadiid iyo aathaar badan uu keenay marka aathaartaas waxaa ka mid ah xadiid waxaa ka mid ah laga warinaya alminhaal ibnu camr ayaa wuxuu yidhi idaa qaala allahu caza wajalla ilaahay markuu yidhaah khuduuhu qabta la yidhaah
waxaa u soo degdegaya qofkaas gaalka ah oo qabta la yidhi 70 malagaa la yidhi malag kasta ahma wuxuu oranayaa maxaa aniga la ii daayo 70 markaasaa naarta lagu ridayaa markaa naartaasaa lagu ridayaa marka sidaasaa malaa'igta ilaahay u shaqaynayda innahu ninkaa marka waxaa la caddaynaya asbaabtii keentay qofkan in sidaa loo galo loo halaago silsiladaha loogu xiro naarta sidaa loogu rido maxaa keenay yacni waa in sababtii lagu caddeeyaa ilaahay wuxuu yidhi innahu isagu kaana wuxuu ahaa laa yu'minu kii aan rumaynaynin billaahi alcadiim ilaahi weynaa ma uusan rumaysnayn adduunka markuu joogay alla ma uusan rumayn iimaan la'aan waay shaqiga yacni kaafir billaahi buu ahaa ilaahay buu ku kufriyey subxaanahu wa tacaala adduunka sidaasu ku ahaa marka gaal oo dhan halkaasa u dambayda maxaa kaloo lagu daray walaa yaxuddu kuma boori jirinin yacni dadka kuma boori jirinin waaye naftiisa iyo keyrkiis midna kuma aanu boori jirinin calaa tacaami almiskiin miskiinka quudintiisa waaye qofka ay dhibaatadu ku dhacday oo miskanadu ku degtay oo aan heli karaynin wuxuu quuto yacni qofkaas in la quudiyo naftiisana uguma sheekay jirinin keyrkiisna kuma boori jirinin hadda wixiisa asaga maaragtay meel la fariisan jiray taas waa sifada naarta lagu garay ka mid tahay qofka mu'minka waxaa la rabaa haddii dadka muslimiinta baahan yihiin baahidooda inaad gacan ka qaadato ood maaragtay yacni dhibaatadooda aad maaragtay si ay hadday gaajooyin yihiin gaajada wax loo geysa lahaa oo dhibaatada dadka muslimiinta ah haysa meel kastoo adduunka ay joogaan yacni lama rabo inaad tiraahdo anu waddankaygii maaha waddan wax la yidhaha ma jiraan meesha muslim kastoo meel kasta joogaa waa walaalka marka dhib hadduu soo gaaro dhibkaas waa inaad ka danqataa waa inaad ka jawaabtaa waa in hadba awooddaadu waxay tahay waa inaad gacan ka geysataa adoo ilaahay ugu dhowaanaya subxaanahu wa tacaala ayaa loo baahan yahay taasaa loo baahan yahay falaysa uma sugnaanin baa la yidhi lahu ninkan shaqiga ah khayrlaawaha ah maanta qiyaamaha la joogi ahay alyowma maanta oo qiyaamo ah haahunaa halkan xamiimun sadiiqun yanfacu saaxiib anfacaya maanta ma leh ama qariib u dhaxaya ma leh ama qof ilaalinaya ma leh qof cadaabka ilaahay ka difaacaya maanta uma sugnaanina leeyo keligiisu meeshaa jooga bimacnaa waxaad ogaanaysaa marka adduunkan joogto cid la isku haleeyo adiga keliga ayaad ilaahay hortegaydaa camalkaagaad alla la hortegayda anuu ree hebelan ahayo fulaan ahayo landheeran ahayo waxaasoo dhan waxba kuu tari maayaan anta wa camaluka ayaad ilaahay hortegaysaa sidaad naftaada ku badbaadi lahayd qof walba uu ka shaqee waayo taasaa laga rabaa walaa طacaamun raashinna uma sugnaanin lale ninkaas oo la siinayo maalinta qiyaame ilaa min qisliinin carun mooyaan carunka ahlunaarka oo kasoo burqada dadka ahlunaarka oo jahannamo ku jira sadiidkaasna ahlunaarka unbaa lagu muxuu ahaa lagu raashin looga dhigayaa ama waa geedkii naarta ka baxayay ayamaa saas oo kale maarto caloosheeda loogu buuxinayaa laa ya'kuluhu kaasoo uusan cunaynina la yidhi ila alkhaati'uun yacni kuwa kaafiriinta ama cid kale aysan cunaynin waayo dadka khaati'iinta yacni kaafiriinta oo irtikaabu dunuub u qasday oo gaalnimadooda ku adkaystay taasoo kale maaragtay waa arrin aad iyo aad u xun waayo qofku markuu dembiga u qasdo haddana ku adkayto israar uu suubiyo waxa weeye waa arrin aad u xun marka gaaladiyaana loo jeeda kuwa kalena ka fogaan maayaan ila waciid kastoo ayaddu ay ku soo aroorto maaragtay gaalad looga hadlayo cusaadul mu'miniinana waxa weye dabaday ku qaadanaysaa saas oo kale maaragtay ilaahay naga badbaadiyey ilaahay wuxuu yidhi marka cardigaa lasoo suubiyey kabacdi intaa lasoo bandhiga ahwaalu qiyaamana lakuga soo sheekeeyey iyo ciribta u dambayn doona dadka wanaagsan iyo kuwa gaalada intaba ayaa haddana waxaa naloo sheegayaa maaragtay suuradda aakhirkeeda xaqiiqada diinkan waxa uu yahay iyo rasuulka runnimadiisa iyo waxa uu rabbigiis ka gaarsiinay hadal dhaba yihiin cayaar ha u qaadan hadal bini aadanna ha u qaadan falaa uqsimu waan dhaaranayaa bimaa tubsiruuna waxaad u jeedaan baan ku dhaaranayaa wamaa laa tubsiruuna iyo waxaydnaan arkayn labadaba yacni waxaad aragtaan iyo waxaydnaan arkayn malaa'igtiyaa ka mid a waxaynaan u jeedin jinnigiyaa ka mid a waa makhluuqaad ilaahay waay waxaad arkaysaan iyo waxaydnaan arkayn baan ku dhaarani innahu isagu yacni waxa weeye qasamkiyaa lagu sheegayaa innahu jawaab alqasamkii waaye oo asaga lagu dhaaranayay
إنه أي إن هذا القرآن لقول رسول قول كي كريم أي ونكسن وقول كي معرته رسول إلهي قول كي سوى ونكسن نبينا عليه الصلاة والسلام أما سوى وحي لكل ما يو عن الله وكلكل ما يو أسوق بديو أسوق قارسيني بأمر الله وإذنه كسوق قارسيه واي قول كاسو واي حيا النبي هودي سماه وحكوها الله يا معت هودي سماه إمام ابن كثير وحوليه إنه لقول رسول كريم وحال وضع يعني محمد صلى الله عليه وسلم إضافتنا بمعنى التبليغ الوجه ذو إله الله إضافين يو محايا الرسول كشأنه إنه مرسل كاه وإنه وح قارسيه وحلو سوريبي إنه مدى قارسيه وهاي مركة تاسع الوجه ذو إنه لقول رسول كريم وما هو معه قرآن كاغو بقول شاعر كبيا هذا الكماها قليلا ما باير تؤمنون أضرمين إنسان يعني أنت أضرمين إنسان أيا يعني هذا كان كما قرآن كان قول شاعر معه شاعر واي كاهن واي وحي قال أي وديو ضدكي مركا النبي كسور جيدي أي ميلها لو وريقين وحصور أنه مجران وقول إلهي ويو رسول كاللوس وديبي صلى الله عليه وسلم تاس أقاد عليه ولا بقول كاهن كتاب قابله وركنا معها قليلا ما با يتذكرون أدوان سميسان يعني مد كتابها الرقاء أما متغانا كتاب يروح أخرية كاس ورصو أرورينا معها تنزيل هو قرآنك تنزيل سود جنواي من رب العالمين حقي سلقى سود جيي قرآن كانوا سيدا قالوا الشيء يسمى هاني ومنزل من عند الله عز وجل إلهي حقي سلقى سود جيي قفك لقعنكم على هوا قفك لقعنكم على ولو تقول هدوك قول الهالي النبي على الوجه علينا كركنا بعض الأقاويل قول أقاويش أما قولك قاركود هدو نوغو هدل لها أو يعني هذا أنكو أنا أشيغين هدو إسكاته لها ودعي لهذا ما بدعينه هدي تاسو دعي لهذا اللي لأخذنا وقبالهنا للنبي عليه الصلاة والسلام من حقيس باليمين أود بانو قبالهن واي أما باليمين باليد اليمنى أين قبلها تاسن ولا شيء هو الدلين يعني كناية عن إذلاله وإهانته الولج هذا أما لا أخذناه بالقوة أي والقدرة أين قبلها ساسو كلام معرته معاني ذا صورنا مقصود كحوى التحويل لوينين أيوه قبشة النبي قال قبلها دوح عن إلهي أدرين وشيء لها مركب معها وشيء لها وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ثم لقطعنا وقيل هنا منه النبي حقيس الوتين حول المريد كان كوكسي لهين مركز ما بنولا ما بجرتبع لما اللي مرة ملح فما منكم إذن كمد معها ليله يعني وحوى حال عضينيا قفنا إنون أودين عذابك إلهي إنه كل استاغو فما منكم إذن كأني كمد معها من أحد قفنا عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام حاجسين يعني كم منعنا حاجسين أي مانعين من عذاب الله عنه نبي عليه الصلاة والسلام عذابك مركا هدو وحان الوضر أن هدو الشيء وعقابك إلهي قفك الدفاعية وكهر استاغية ووحان نكو أن دوني إن هور استاغي كرا من نم جرواي من نم جرى مركا قاربة حلية يعني مفسرين تكمل التقول كوحلوجي ذا افتعال القول وهذا القول أبورته وما أيضا إذن كود دارين لا أبورته وتكلف كجيرة وقفه أسوي سكن كين هذا الكاس هذا لان لو شيء إنه ما أردت الله إيمانه مركا أقواش صدنا أقاويل اللي يروح تسخير يتحقير درس لو عجيب أو كلا لوجه فيه أضاحيك أو كلا يعني وحويا وهذا الله aan meel macno weyn lahayn oo qofku jeebkiisa asagu kala yimi marka sidaasan u geli lahayn baa leeyahay nabiga kaleey salaatu wasalaam haduu sidaas oo bilahaayay wa innahu ay wa innal qur'aana qur'aankan la tadhkiratun wa nawiya lil muttaqiina kuwa cabsanaya oo ilaahay ka cabsanaya subhanahu wa ta'ala ayu qur'aankan wuxuu yahay waano iyo hanuunin maaragtay taqwada uu ku hanuuninayo weyn qur'aankana maaha waxbaan meel laga keenay wa inna anaku buu yiri allah subhanahu la na'lamu wa nu'ognahay
أن منكم أذنك إني كمديهن مكذبين كوا بيني حقا إني نكو جيران كوا قالا وحق ديدا إني كو جيران كواس وكور قمنا ورسولك أن عليه الصلاة والسلام كسوه الجياد وكور قمنا وإنه قرآن كان لحسرة واي شليتوكويا على الكافرين يعني مركي قالوا لتقو ندمك يقوم مضى مركي حسابتي مصيرك أوضن بي أركان مؤمنين وناقا يكودن بيان يقالوا ماشي يكودن بيان يعني مركاس حسرك النغان شليتك النغان ويشلين يعني وإنه القرآن كان لحق اليقين يقينتي حق دي يعني يقين وربع حقه السجون ومن إضافة الصفة إلى الموصوف عليه يعني إحساس وكلام مالك حقي على إضافة يقينتي على إضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف مالك مرك القرآن كان حق ويه فصبح تسبيح سال النبي الله باسم ربك مقعيس والتصبيح صادق وكل يهان العظيم وين ربك وين الله سبحانه وتعالى نزه ربك كهف عليه وكنسته يعني وح الله وحان عن كل ما لا يليق به وحكى سواء أعنت من كفقيا لله سبحانه وتعالى مركز داعدنا كدداله تصبيح ذا كدداله ساعات كستبا صورة دساسة لغوصو ختمي وفوال بو مركز نفت هذا ميل وناكسن أرادي ورسولك إلهي الراع ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوسكات كمودنتها كديو ودينت إلهي مارتي إلالي ورشأي قدقن إينا تكون نفت هذا مارتي خيرك وناك كل داشو ليلا نهار همين إيا مالين وقت ويري هو حير عمر ودمانيا marka qof walba maartay waqtiga ka faa'iideyso ilaahay kuwi maartay taacadiisa ku dadaal Allah inaga dhigo kuwi iimaanka iyo maartay manhajka wanaagsan ku sugnaada Allah inaga dhigo ila an kala kulmayno ilaahay subhanahu wa ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in.